Yes, aan record gareynaynaa. Waayahay, waxaanu nidhi meesha ugu badan ee literatureka laga helo waxa weeyaan Google academic Google ama Google Scholar oo xaggan ah. Hadda waad arki kartaan shaashadayda. Let me go markaa. Waayahay, waxaanu nidhi Google Scholar ayaa ah meesha ugu badan laga helo maaragtay literatureka. Marka maxaan uga baahanahay waxaan aan darsayo citationkiisa ayaan u baahanahay ayaan idhi horta. waxaan u baarayaa baan idhi literatureka variableska ama waxyaabaha aan rabo ayaan halkan gelinayaa marka. Cost plus quotation tusaale ahaan khad consumption kabacdina waxaa iga soo boodaya the most relevant ama sida ay u kala muhiimsan yihiin ayaa meeshaasi iga soo boodaya marka. This is markaa paper raba inaan akhriyo. marka sida loo akhriyayo xalay baanu isla aragnay. Academic paper waxaanu nidhi title-ka la akhriyaa, waxaa la eegaa baanu nidhi keywordska, saddex waxaa la akhriyaa abstract-ga, waxaanu nidhi abstract wuxuu ka kooban yahay 4 component oo muhiima. goolka cilmi baadhista loo sameeyey, wuxuu ka kooban yahay methodology-ga la isticmaalayo, wuxuu ka kooban yahay key findings oo halkan ku jira, iyo conclusion. marka ugu dambeyn waxaan tagayaa baan idhi conclusion-ka oo aan intaa markaan sameeyo waxaan sameeyey citation-kii baan halkan ka qaatay. halkan buu ku jiraa citation-ku. marka paperskaad markaa akhriyeysaan citation-kooga dad manual gelinaysaan halkan baad ka helaysaan. waa kan halkaas side ku qoranta. marka waa APA iyo waxyaabaha haddii markaa hadhow aadnu isticmaalayno waxa la yidhaahdo secondary haddii aanu isticmaalayno software-na halkan ayaa laga download garaysanaya. waa kan reference manager form file buu ku download garaynayaa. filekaasi baad markaa ku qoranaysaa paperka magaciisii, kaasaad markaa aad dejisanaysaa citation kuu noqonaya marka let's assume inaan soo akhriyey markaa waxa la yidhaahdo waxaan soo akhriyey literatureki sidaa imika aan usoo baadhay baan usoo baadhay beebaraan soo helay. this is markaa kani waa tusaale, waa case kaa lamida. marka halkii xalay toole aan inoo joogtay ayaan kasii bilaabaynaa. marka kani stabis buu leeyahay. stabiskan waxaan ugu talagalay ardayda dadka aanan maaragtay aanan seminaarkan joogin oo kale, qofka manualka 12 page-ka ah hela inuu iskii uu tallaabo isagoo qaaday literature review u dejin karo. marka waa tan intan afkaan ka sheegayo halkan bay ku jirtaa oo waa kuwan. tusaale ahaan stabta koowaad waxa weyn extract summaries. summary-ga si aad u isticmaasho citation-kii soo qaado buu ku leeyahay si aanad u iloob. sidoo kale summary-ga maaragtay inta dhexda outerka magaciisa unbaad inta dambe soo gelin doontaa ayuu leeyahay marka. this is marka how it looks like. case-kani marka waa maxay? case-kan baan overview idinka siinaya. case-kan wuxuu ka hadlayaa qofkan wuxuu rabaa inuu fahmo communication in the first workplace. يعني the first waxa weeyaan
meel diversity ka jirto Afrikaan iyo Hindi iyo Maraykan iyo Ingiriis meel ay ka wada shaqeeyaan communicationku siduu uga dhex jira ayuu rabaa qofkan inuu darso markaa wuxuu eegayaa problemka iyo maaragtay solutioniska ayuu rabaa inuu darso markaa qofkan therefore literature markuu soo akhriyo soo baaray waa kan wuxuu soo qaaday markii koobaad reference-kiibu soo qaaday markuu sidan wuxuu u dhan yahay waxa la yiraahdaa reference marka laakiin gudaha uu ku jiro integer citation baa la yiraahdaa marka paperkii koobaad markuu akhriyay inagoo isticmaalayna isagoo isticmaalay tusaalaha sidii inagoo aanu aragnay xalayto waa kan wuxuu yiri Becker and Gower oo labada nin authorka ah storytelling-ka ayay waxay u arkeen waxay soo akhriyeen paper waxay sheegeen in storytelling-ku uu yahay hanaan kor loogu qaadi karo communication-ka dadka meelaha kala duwan ka yimid ama diversity-ga ah marka waxay leeyihiin communication si uu effective u noqdo dadka kala duwan in storytelling la isticmaalo marka therefore authors represent a model of storytelling as a complete organizational communication tool and discuss how to effectively apply storytelling in the diverse work environments waxay sheegayaan model storytelling la yiraahdo iyo sidii looga maaragtay adigu kor loogu qaadi lahaa environment-gaas marka this approach may not be suitable for all organizations but information provided by the article can be used to help develop alternative strategies intan yaa iskale qofka paperkan qoray baa summary-gan leh laakiin wuxuu ka soo akhriyo ka fahmay paperkii Becker and Gower ay qoreen this is the first paper uu akhriyay notice-kana uu ka qaatay second paper waa kan Fine baa qoray Fine believes that increasing cultural diversity of the US workforce is perhaps the most pressing challenge of our times wuxuu ku leeyahay cultural diversity-ga ka jira Maraykanku weliba goobaha shaqo waa arrin dhibaatooyinka ugu weyn ee waqtigeena aan wajahayna weeyaan marka however research into these issues has produced mainly general overview on diversity with theoretical perspective ninkan adu markuu akhriyay idinka hadhow step by step akhrisan doona manualkan laakiin markii uu paper-ka akhriyay intii nuxurkii waan igan highlight gareeyay wuxuu leeyahay the most pressing challenge weeyaan ee Maraykanka ka jira kii saddexaad paperkii saddexaad baa la akhriyay paperkii saddexaad waa kan waxa weeyaan interview qabtay 5-month period ayuu dad Afrikaana oo maaragtay kala background duwan ayuu ka qabtay marka muxuu yiri isaguna wuxuu leeyahay waa kan communication-ka waliba internet-ka si yaroo fudud ayaa uu u buri karaa ama uu u khalkhali karaa oo waxa khalkhalinaya wax kale maahe waxa weeyaan waxa la yiraahdo cross cultural maaragtay barrier baa jira oo dadkani si kastoo luqadda u yaqaanaan haddana habdhaqankoodii baa kala duwan sidaa daraaddeed taasoo helay markaa wuxuu ku leeyahay dadka kala duwan ee ka imaada goobo kala duwan ama diverse background leh waxay la imanayaan waxa la yiraahdo different attitudes therefore halkaasi waxa weeyaan arrin u baahan attention okay hadda maxaan samaynay citation-kii ballaadhnaa umaan meesha ka tuurnay citation-kan ballaadhan ayuunbaa istabtan laga tuuray waxaa la soo geliyey authorkii iyo sanadkii maxaa ku cusub markaa keliya sanadkii baa ku cusub summary-gu laakiin waa intii summary-gan waxaad maskaxda ku haynaysaan ilaa literature review-gan intaan waxaynayno uuna daba soconayaayo copy and paste-gan ayaan halkan aan isticmaali doonaa markaa si uuna citation-kii nooga lumin authorkii iyo sanadkii baan soo qaadanay intii kalena meel baanu kaga nimidnay markaa tusaale ahaan kaa koobaade Becker and Gower waa paperkii koobaad waa kaas halkaan baan sanadkii aanu soo gelinay markaa kii koobaad markaa saasuu akhriyey kii labaad waa kan kii saddexaad waa kan kii paperkii markaa saddexdaas tusaalaan soo qaadanaynaa hadda markaa waxaan hubinaynaa waa tan halkan kugu qoran integer citation ayaa la yidhaha markay uu halkan taaganahay kan waa reference kan badan kaas waa reference integer citation-kana kan baa la yidhaha waa kan integer citation waa kaas okay hadda markaa maxaan samaynaynaa haddaba paperskeenu waxay noogu kala habaysnaayeenuun sidii aanu kala hor akhrinay
وبيبركي كوبادين أخرنا يكي لبعض يكي صدحة استبتن لكن واحد سميننا read and reorder بان سميننا مركا wixii intaan ku noqono ayaan bal dib u akhriyayna markaa waan kooxaynayna markaa intii isku meel islaba markaa in this step hadaba read the summaries and rearrange them for discussion maanu diyaar garaynayna markaa intii islaba dhinac baan maaragtay aan isku raacinayna markaa okay waa kan hadaba maxaanu nidhi paperkii koowaad waa kan tusaalahan Barker Gower waxay yidhaahdeen storytelling waa hanaan kor loogu qaadi karo effective communication in the first workplace. Marka iyagu maxay soo jeediyeen form of storytelling as an organizational communication tool. Therefore, waxaan ku xidhaynaa, waxaan ku label garaynaynaa concept-ka ah solution buu qofkani soo jeediyay paperkaas. Cilmi-baaristaasi waxay soo jeedisay solution ayaanu haynaa hadda waa kan. Okay. Kii labaad baan akhriyaynaa haddaba. Kii labaad wuxuu yidhi isagu cultural diversity of the US workforce is perhaps the most pressing challenge of our times. Kana waa problem wuxuu leeyahay waa most pressing challenge. Therefore problem baan ku label garaynayna. Maxaan u diyaarinayaa markaa? Hadhowto wixii islaba dhinac baan israacinaya. Markaan problem ka hadlayo saddex paper oo citation aan ka soo qaadan doon ama paragraphyada iyo dhisi doona baan meel dhiganayaa markaa. Okay. Kii saddexaad baan u tagayaa haddaba. Frisoli wuxuu isticmaalay bay yidhaahdeen series of interviews oo West African men ayuu la sameeyey si uu arko maaragtay si uu u darso communicationka dadka kala duwan wuxuu helay isagu communication on the internet zero easy ayuu u lumi karaa waayo cross cultural barrier baa jira marka dadka kala duwan waxay la imanayaan set of different attitude sibay u kala arkayaan teknolojiyadda arrintaasi marka waxay keenaysaa in communication koogu lumo marka kan waa problem u baahan in la fahmo problem need for understanding weeyaan waxaan u baahannahay in la fahmo problemkan marka in si kastoo dadku luqadda ay u bartaan iyo waxa ayna ahayn laakiin attitude-kooga iyo background-kooga ku salaysan uu keenayo arrinkaa ka duwan marka kana waa paper kale isagu wuxuu leeyahay wuxuu darsay isagu the impact of culture on communication for migrant workers in Australia 12 shaqaale ayuu interview ka qaaday oo si fiican luqadda loo u bartay sidoo kalena wax bartay intayna therefore haddana waxaa jira significant communication barrier baa jira si kastoo luqadda u garanayaan marka isagu wuxuu leeyahay barrierskan waxay ku salaysan yihiin cross cultural differences dadkan way kala duwan yihiin habdhaqanka ee ma aha luqadda marka therefore wuxuu leeyahay innovative communication in the workplace program ayaa loo baahan yahay therefore waa problem ballaaran oo tanna in la fahmo u baahan okay another paper waa kan haddana kana wuxuu leeyahay tusaale wuxuu leeyahay kana communication conflicts through diversity training ayaa lagu address garayn karaa yani wuxuu leeyahay communication barrier-ka jira waxaanu lagu address garayn karaa diversity training in la helo oo maaragtay awareness dadka loo sameeyo marka oo factorieska conflict-ka keenaya iyo individual cultural background-ka iyo in dib loo eego waxyaabahaas therefore waxaanu ku label garaynaynaa ama u bixinaynaa solution inuu qofkani soo jeedinayo oo wuxuu leeyahay meeshii luqaddu yaan la eegin cross cultural barrier baa jira tababar ha la qaato diversity training kan kale isagu wuxuu leeyahay 14 native speakers of English ayuu waraystay soo cabiro sida negotiation-ka iyo waxyaabaha 13 kalena native-na uu waraystay results waxay sheegayaan native speakers waxay isticmaalayaan buu leeyahay wide range of linguistic device than non-native therefore waxay isticmaalayaan waxyaabo badan oo devices therefore wuxuu leeyahay marka native speakers lack an understanding of the issues of intercultural communication dadkan speakerska native-ka ee luqadan u dhashay cross cultural iyo ayagu ma xiriiriyaan kama warqabaan marka therefore waa problem u baahan in la fahmo kana marka waayahay kana wuxuu leeyahay isagu need for translation and cultural diverse communication waxaan u baahannahay uu leeyahay in la sameeyo translation marka therefore kana waxaan u bixinaynaa waxa la yiraahdo solution marka okay hadda maxaan sameeynaa marka
articleski baan waxaan u kooxaynay wixii solution iyo waxyaabahaas marka iyo problem need for understanding iyo problem baan u kala qaadaynaa marka waa kuwan okay hadda maxaan sameynay summaries reordered for discussion baan u diyaarinay summary-geen kii koobaad problem buu ka hadlay waa kaas kii labaad wuxuu ka hadlay problem need for understanding oo waa kan kii saddexaad wuxuu ka hadlay problem need for understanding waa kan kii afraad wuxuu ka hadlay problem need for understanding waa kan okay saddexdana solution bay ka hadleen oo kan wuxuu leeyahay storytelling kan wuxuu leeyahay translation kan kalena diversity training waa in la bixiyo therefore hadda halka maxay iga sawiran hadda halka waxa iga sawiran structure-ka paper-kayga ama literature review-gayga ayaa halkan iga sawiran markaan ka hadlayo communication-ku inuu problem yahay diverse workplace-ka evidence-gii waa kan citation-ka kama ka soo qaadanaya haddana markaan xoojinayaan leeyahay problem kaliya maaha xitaa problemo kale in la fahmo u baahan baa jira halkan maan ka soo qaadaya marka waa kuwan marka la weydiiyo wax solution halkan maan ka soo qaadaya marka each variable marka idinku variable tusaale ahaan employee motivation and job satisfaction maan ka hadlayna xidhiidh baa ka dhexeeya kuwa leh ama evidences kale there's a hypothesis soo sameeyay beebarada leh xidhiidh baa ka dhexeeya promotion iyo job satisfaction-ka halkan baad gelinaysaa lack of promotion and job satisfaction day jiraan halkan baad gelinaysaa marka saasaan marka aan u kala kooxaysanayna marka literature review-geeni okay haddaba maxaan samaynaynaa istabta afraad waxaan u baahannahay inaan qaabayno haddaba barigraphiskeeni literature review-ga marka barigraphisku marka iminka kani macno ma samaynayo sidaa uu iskaga taagan yahay laakiin inagu waa inaan macno u yeelaa oo aan topic-aanu darsayno iyo research problem-keena aan shaar leegu gelinaa marka maxaan samaynayaa shape the paragraph is egg each body paragraph wuxuu u baahan yahay topic sentence wax la yidhaha si introduce uu sameeyo source-ga waxaanan ka hadli doono marka meeshii xalay aanu lahayn weeyaan every academic paragraph wuxuu leeyahay waxa la yidhaahdo claim evidence iyo analysis marka claimku topic sentence weeyaan maanu nidhi marka literature iminka markaan soo akhrino ayaan sentence-kan odhan karnaa this read waxa weeyaan topic sentence-kii marka cultural diversity has long been recognized as a potential problem in the workplace that deserves serious attention intaasoo ku furay marka waxa weeyaan claimkan wuxuu ogaaday markuu intan akhriyey in problem ay jirto kadib therefore wuxuu keenaya evidence-gii oo waa kan evidence-gii as far as back in 1996 Fine stated that cultural diversity of the US workforce is perhaps the most pressing challenge of our time. Wuxuu sameeyay marka evidence-gii uu keenay marka okay topic sentence weeyaan kaas waayo kuwan isma garanayaan innaga isku xidhxidhayna marka kaa koobaad topic sentence baan u samaynayaa paper-kan labaad markaan u gudbayna transition sentence baan u samaynayaa marka okay waayahay topic sentence-kii waan ka soo gudbay marka now waxaan u baahanahay marka cilmi baaristan labaad inaan u gudbo therefore waxaan u baahanahay wax isku xidho taya that is a transition maaragtay waxa la yidhaahdo transition sentence waa kan muxuu isku xidhayaa transition sentence-ku wuxuu isku xidhayaa labada maaragtay source buu isku xidhayaa marka fine oo kii sare ahaa Fine's call to action was headed by numerous researchers in the study of and resulted in studies of geographically dispersed cultures. cilmi baarista hore serious problem bay tiri si uu u sii taageero wuxuu leeyahay kuwa kale iyaguna meelo kala duwan ka sameeyay arrintan in problem jira ay tahay kuwan buu markaas ku xidhxidhaya kaa koobaad buu sheegay kan buu soo guuray haddana kaasuu soo guuri doonaa haddana kaa ayuu soo guuri doonaa marka okay marka waa kan the same intii markii hore aan akhrinay oo soo celinay waxa cusub inta readka oo topic sentence marka haddana kii saddexaad buu soo qabtay frisoli buu leeyahay isaguna dhinaca kale adduunyadu ka qabtay intii aan soo sheegnay buu sameeyay marka okay sidoo kale wuxuu soo sheegay haddana geographical angles kala duwan buu ka eegay mar Australia mar Mareykan marba meel haddana waa kan oo kii problem need for understanding buu soo sheegay marka hadda waxaanu baadhaynay problem iyo solutions wax solution weli maanu arag therefore waa kan marka waa inaan dhisnaa marka waxaan u baahannahay marka another topic sentence ayaan u baahannahay kale oo maxay kii hore problem buu bilaabay intii dhaxna transition sentence bay hayo hadda waxaan u baahannahay topic sentence cusub
oo solutions ka hadlaya solutionskana ilaa hoos inoola daadega marka. Okay, a variety of specific techniques have been suggested to address the problem of overcoming the impact of cultural diversity on communication in the workplace. Topic sentence buu sameeyey. Muxuu soo guurayaa kuwii solutionska yidhi. Waa kana background gawa examine storytelling as a way to increase effective communication. Kii labaad diversity training ayaa la samaynayaa buuri. oo halkan wuxuu samaynayaa marka topic sentence buu samaynayaa kale. marka wuxuu soo guurayaa kan cusub marka. wuxuu yidhi haddana kana diversity ayuu ka hadlay. kii saddexaadna diversity training buu midna ka hadlay, midna storytelling buu ka hadlay, midna wuxuu ka hadlay translation. saddexdii solution kiina halkan buu soo geliyay marka. maxaan marka haddaba u baahanahay? Just waxaan u baahanahay introduction and conclusion in aan sameeyo literature review marka. marka this is paper marka samaynayso kala weeyaan kan. laakiin adiga introduction wuxuu ka hadlayaa thesis-ka jaamacaddu guideline-ka soo siisay baad raaci doontaa. This chapter wuxuu ka hadlayaa tusaalahan introduction chapter 1 wuxuu ka hadlaa content-iska chapter-ka iyo waxyaabaha. Conclusion-kuna wuxuu ka hadlaa literature-ka aad soo review garaysay iyo waxyaabahaas oo ka hadlaya marka. Therefore waa kan tusaalahan introduction ayaa loo aan samaynay, conclusion-na waan samaynay. This is our final literature review marka. intan waxa weeyaan introduction oo inaga iskale. inaga leh. oo ada iskale intan. ada laga rabaa inaad samayso. Okay. muxuu sameeyay marka? wuxuu sameeyay just defining the problem ee hadaba. wixii problema beebaradii problemkii oo dhan dhinac isku raaciyay. oo waa kan topic sentence-kii koowaad, kii labaad, kii saddexaad. waxaan marka halkay iskaga yimaadeen. nimankan isma garanayaan tusaalahan Ibsen, isma garanayaan Frisoli, isma garanayaan kuwan kale Suan Sweeney, waxaan isma garanayaan. Therefore maxaa isku keenay? Technique aan isticmaalayna isku keenay oo inagana inoo fududeynaya inaan literature review samayno. Okay. intii solution waa kuwan beebaradii solution-ka. marka borigani waa intii inagu aan maalinkii ugu horreysay summary-ga qaadanay aan wada samaynay oo dhan baa meeshan inoogu jira marka. marka wax cusub oo hadba dib aan u qorayno maaha. oo anagii lahayn intan eeg storytelling-ku waxa weeyaan hanaan anagii lahayn. haddana kan buu soo qaatay, kaasuu soo qaatay marka. This is conclusion-kiina waa kan, references-kiina waa kan. This is how we make articulating literature review marka. samaan u samaynaynaa marka. oo literature review maaragtay waxay naga caawinaya inaan samayno waa kaas marka. haddii marka technique aanu raacno waxaanu samayn karnaa literature review effective marka. marka tusaale ahaan haddaba aan u soo noqdo. halkan markaad joogto, let me show you something. halkan markaad taagan tahay. halkan markaad taagan tahay. background of the study aad qorayso adigu. haddii qofku uu ka soo bilaabo background of the study maalintii koobaad, dee jiho uu u socdo ma garanayo. laakiin markuu variable-iskiisa dhisto wixii uu akhriyay uu halkaa ka soo eegto conceptual framework uu summary halkan soo dhigto ayuu background-ka isagoo raaxaysanaya qori karaa markaa qofkaasi. ama si yaro fudud oo easy ama statement of problem-ka waan idhaahdoba markaa. markuu leeyahay tusaale ahaan communication in diverse workplace waxay u baahan tahay arrin attention badan u baahan weeyaan. waa kuwan inferences-kii uu soo qaadanayo maaragtay waa kuwan inferences-kii uu soo qaadanayo. markuu ka hadlayo wax solution la xiriira waa kan markaa. The same ayaa based on your needs iyo cilmi baaristaad qorayso ama thesis-kaad qorayso. The same step ayaad raaci kartaa markaa. This is markaa how we do literature review. sida aan u samaynayno waa intan weeyaan markaa. marka waxaan eegi doonaa after 4 minutes by not even after 4 minutes na citation and referencing baan eegi doonaa. marka ciddii su'aal qabtaa maaragtay gacanta ha taagato.